بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له يو وين سلامي ميلو اللي بقى جوبتان سلام كدب. الحمد لله الله بقى ما هذا رسول انتحي يعني انت كدب وحارب حديث إن أمبراروجيو حديث كاس أو ضد لقيا بين سيقل دن أفهمان حديث كاسنا وحاورينا يا سعد ابن أبي وقاص باورينا يا الله كره لنقدر نبي صلى الله عليه وسلم وحويري من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام متفق عليه. حديث كان وحو إنو شاقي قف آن دالين كويرا هذا آبه إسوغو أقولي بقفك إنو سان دالين قفك السيدة سمينيا جنة وكحاران إنو قلو وحاجر مرك الله شيء وأرنت أو حديث كهلايو أرنت لبعضنا أرنت أصوئك إنه ضد إسلام بيننا هاي إسلام كانوا حين أمر يا وحلي هذا احترام إن نقفل باحترام قفك إن جوين مركان الله هدلينه وحنو استعمالنا إرايو احترام لكن والدنا موجنسا سيدا إيدو حبرير أبتي أذر أوه هويو يا أبي intaasoo macnaheedu uu yahay ixtiraam laakiin uusan ahayn xaqiiqo iyo ama habararba ii tahay ama eeda ii tahay ama ayeey ii tahay ama hooyo ii tahay ama aabu ii yahay ama awow ii yahay ama adeer ama abtibu ii yahay macnaheedu uusan ahayn xadiidkan hadda aan soo qaadanayna waxa uu inoo sheegaya oo inoo tilmaamaya waxay tahay waa qof uusan dhalin isagoo og ku yiraahdo hebel baa dhalay ama heblaaya ay dhashay yiraahdo isagoo og qofkaas inuusan dhalin qofka sidaas sameynaya jannadu waa ka xaraam laakiin wixii ixtiraam iyo respect oo qofkan aad ku ixtiraamayso xadiidkan ma soo galayso xadiidkan wuxuu ka hadlayaa linasab dhalashada iyo abtirka iyo qofkan meesha uu asalkiisa galayo buu xadiidkan ka hadlayaa laakiin wixii ixtiraam oo qofka kaawanaad ku ixtiraamo saduu raali kaaga yahayba diinta inoo sheegtay oo diinta ixtiraamka ina bartay iyo inaan dadka ixtiraamo marka labada shay yaan la isku qaldin hala kala saaro xadiidku waxa uu sheegayo waa linasab qofka nasabkiisa iyo dhalashadiisa iyo meesha ku abtirsanayo qofka yiraahdo qof uusan dhalin wuu dhalay oo waan ku abtirsanayaa jannadu waa ka xaaran inuu galo isagoo waliba og qofka inuusan dhalin laakiin qofkii ixtiraam u sameynaya حديث كان مسوق ليو انت اسبارو انا براروجيو والله لي توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته